السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا كسر دواد تيفيغا سومالي كرافتس اوفيشال. فلان هداad ku cusub tahay channelka subscribe saar videogana like sii adigoo aragtidaada noogu dhaafay comment aad ayaad u mahadsantahay. waa tahay daawad ee soo dhawaada mar labaad. musiibo qaran ayaa ka dhacday waddankaasi Pakistan. wasiirka tareemada ee waddanka Pakistan Sheikh Rashid Al Ahmed ayaa sheegay inuu dab ka kacay tareenka dhexdiisa kadib markii laba shooladood oo kuwa cunada lagu karsado ay isticmaalayeen rakaabka saarnaa tareenka ay ka gubatay. tareenka dhexdiisa gaaska ka gubtay ama shooladii qarxay ayaa sababay tareenka dhan inuu gubto. dadkii ugu badnaa ee saarnaa tareenka ayaa ahaa dad islaama, gaar ahaan jamaacada tabliiqa ee faafisa diinta islaamka. saxaafadaha reer Pakistan ayaa isla dhex maraya ugu yaraan 74 qof inay ku dhimatay, halkaasi in kaloo ka badan ay kusii dhaawacmeen. dhimashadii dhaawac ugu badan ayaa ka imaanaya kadib markay dadku bilaabeen inay iska tuuraan tareenka ololaya. tareenka ayaa kasoo kicitamay koonfurta magaalada Kharaaji isagoo u sii socday magaalada dhankaasi Rawalpindi. telefishinka footage la yiraahdo ee waddanka Pakistan ayaa soo shaqay laanta waddanka Pakistan ayaa shaaciyay markii ugu horreysay fiidiyoga. sidoo kale sidaad ka daawan kartaan fiidiyoga telefishinka footage-na uu baahiyey waxayna tusaysaa in qiiq iyo olol badan uu hawada isku xiray. mar labaad haddii aynu ku celino, wasiirka tareemada waddanka Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ayaa sheegay in dabku ka dhashay kadib markii laba shooladood oo ka mid ah dadka rakaabka ee tareenka saarnaa ee qarxay, taasoo ahayd shoolad ay ku karsanayeen cunno. intaas ayuu nagaga eegaa qodobka warka caalamiga maanta. aad ayaad u mahadsantahay daawad. waxaan mar labaad ku xasuusinaynaa inaad channelka subscribe saadid, fideogana like siisid, aragtidaadana comment noogu dhaaftid. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.